بسم الله رب يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan la wadaago dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan arrin muhiim ah oo ku saabsan ama la xiriirta xilliyada imtixaanka ardayda ay galaan, maadaama marka aynu joogno hadda xilliga imtixaanaadka aanu joogno ay bilaabmeen qaarkoodba laga yaaba inay mar hore ay bilaabmeen. Marka maanta waxaan rabaa inaan la wadaago dhammaan ardaydaasi qiimaha badan ee Soomaaliyeed. Waxaan rabaa qodob muhiim ah. Qodobkaasi oo ah marka maxay tahay sababta ka dambeysa in ay mar walbo ay kaalinta koowaad hal iyo labo arday oo gaar ah oo la yaqaano ay galaan. Sababta ka dambeysa maxay tahay? Ardaydaasi miyay ay ka fiican yihiin ama miyay ka aqli fiican yihiin ardayda kale ee ka soo hartay, ama waxaa jira sabab kale oo u suurageliyay ardaydaasi ama shakhsiyaadkaasi inay mar walba ay kaalinta koowaad iyo labaad ay iyagu iska haystaan. Marka waxaan rabaa sirtaasi inaan la wadaago ama aan u sheego u suurageliyay ardaydaasi mar walba inay kaalintaasi ay galaan u suurageliyay ayaan rabaa inaan la wadaago ama aan u sheego dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Marka hore ardayda kaalinta koowaad gasha waxay hayaan sir aanan haynin ardayda kale. Marka maxay tahay sirtaasi u suurageliyay ardaydaasi mar walba inay kaalintaasi ay galaan? Midaasi aan ka hadli doonaa maanta insha Allahu tacaala. Marka ugu horeysa, haddii aad rabto in aad gasho kaalinta koowaad ama aad ka mid noqoto dadka kaalinta koowaad mar walba ku guuleysta inaad ka mid noqoto, haddii aad rabto ugu horeyn waa inaad sameysaa ama aad ku dhaqaaqda qodobadani soo socda. Kow waa sirta koowaad oo ugu horeyso waxay tahayba inay casharadooda ay soo dhigtaan ardaydaasi 2 jeer weeyaan. Sirta ugu muhiimsan oo ugu horeysa waa midaasi, oo micnaheedu ay tahay ardaydaasi waxay sameynayaan marka la gaaro xilliga fasaxa ee 2 bilood ee fasaxa la galaya, haddii ay tahay jaamacad, haddii ay tahay iskuulaadka nidaamiga. Marka la gaaro xilligaasi fasaxa ay waxay sameeyaan ardaydaasi waxay soo dhigtaan ama ay soo bartaan casharka ka horeeya ee sanadka soo socda ay u tagi doonaan, fasalka ugu tagi doonaan ama jaamacadda ugu tagi doonaan ayay soo bartaan inta aan la imaan jaamacadda ama iskuulka. Taasi oo aan ula jeedno marka ardaydaasi waxay galayaan marka koorsooyinkaasi koorso la xiriira ama maadooyinkaasi ay dhiganayaan maado la xiriirta ayay aadayaan oo barayfado iyo meelahaasi ama qeybo kale siday doontaba ay u soo baranayaan. Kadib marka la soo laabto oo fasaxi laga soo laabto, waxaad arkaysaa marka ardaydii ama ardaygii wuxuu haystaa marka casharkii uu qaadan lahaa asigoo garanaya ayuu imaanaya oo soo fadhiisanaya fasalkii. Halka ardayda kale ee badankooda marka tirada badan marka arrintaasi aynan sameyn karin marka ama aynan soo sameynin. Marka sirtaasi ayaa marka keenta mar walba in ay ardaydaasi marka mar walba ay kaalinta koowaad ay galaan ugu horeysa. Sirtan oo keliya maaha, balse waxaa jira dhowr qodob oo aan soo sheegi doono weliba. Marka waxaa laga yaabaa adigu marka xilliga qofkani uu mashquulsan yahay oo maadooyinkaasi iska soo dhisayo oo soo kordhisanayo oo kororsi soo sameynayo, adiga 2daasi bilood waxaa laga yaabaa marka inaad is leedahay niyo 2 bilood oo fasax ayaan haystaa, maxaan sameeyaa, maxaanse ku qarash gareeyaa. Marka halka aad meeshaasi aad ku mashquulsan tahay iyo cudurdaaradaasi aan jirin aad ku mashquulsan tahay, qofkani wuxuu soo sameeyay marka naftiisa ayuu soo horumariyay oo maadooyinkiisa ayuu iska soo dhisay oo soo bartay. Marka aad isla imaadaan fasalkii ama semesterkii, marka aad isla imaadaan, marka aad isla soo fadhiisataan, asiga already casharkiisa wuu yaqaana oo wuu garanaya. Marka mar labaad ayay u noqonaysaa marka ardaygaasi casharkaasi marka qof casharkii markii labaad oo qaadanayo oo baranayo iyo qof hadda marka ugu horeyso oo markii ugu horeyso uu maqlayo casharkaasi iyo sharxaadiisa intuba marka isla mid ma noqon karaan marna. Waa midda ugu horeysa, qodobka ugu horeeya weeyaan. Sirta labaad waa
marka aad ku jirto fasalka ama xilliga aad ku jirto fasalka weeyaan sirta labaad. Marka aad ku jirto fasalka waxa weeyaan waa barta ay kasoo bilaabanto guusha qofka weeyaan. Marka barta ay kasoo bilaabanto guusha qofka weeyaan marka aad ku jirto fasalka, sababtoo ah waa meesha aad kasoo qaadanayso cilmigii, sidoo kale waa meesha aad ka helayso qof wax kugu bara luuqadaadii, wax kugu sharxaya, macallin wax kugu sharxaya ayaad helaysaa oo maadadii ku fahansiinaya ama ku baraya ayaad helaysaa. Marka fasalka marka aad ku jirto waxaa fiican inaadan ku mashquulin waxyaabo kale oo aanan ku habboonayn ama munaasab aan ku ahayn fasalka, sida inaad ku isticmaasho mobilkaaga aad ku isticmaasho, iyo sidoo kale inaad adigu fasalka aad ku dhex qayliso oo doodaada iyo dagaalkaaga iyo qayladaada iyo aan laga fadhiisan karin. Marka fasalka waa inaad aamusnaan oo zaa'ida aad muujisaa si aad u fahanto, aad u maqasho macallinka sharaxaadiisa, sidoo kale iyo si aad u qorato marka aad maqasho kadib sharaxaadaasi aad u qorato noodkaagii aad u qorato. Sidoo kale waxaa jira sir saddexaad, sirtaasi oo ah waa marka aad ku soo laabato guriga. Sirta ay sameeyaan dadkani kaalinta kood mar walba ay ku guuleysto waxaa ka mid a sirta saddexaad oo iyagu ay sameeyaan, oo ah marka ay guriga imaadaan waxa ay sameynayaan in ay casharkii ay akhriyaan ugu yaraan 10 daqiiqo inay akhriyaan casharkii. Sababtoo ah marka aad guriga aad imaato oo maanta oo dhan dhowr xis aad soo qaadatay ama dhowr cashar aad soo qaadatay oo aad imaado gurigii kadib waxaad xasuusataa weli xasuustaadii marka waxaa ku jira casharadii aad soo qaadatay, fahankoodii ayaa maskaxdaada ku jira. Marka haddii aad samayso marka aad guriga aad imaato aad nasato aad waxyaabihii daruuriga ahaa aad samaysato, refresh aad soo qaadato, aad nasato kadib waxaa lagaaga baahan yahay inaad samayso marka ama aad akhriso casharadii aad soo qaadatay, maadooyinkii aad soo qaadatay ugu yaraan 10 daqiiqo inaad ka akhrisaa maado walbo waad inaad ka akhrisaa. Marka kadib midaasi waxay kugu fududeynaysaa marka inaad casharkii aad fahansanayd mar labaad aad sii fahanto. Marka gaar ahaan marka haddii aan eegno ardaydii hore ee soo bartay xilligii fasaxa lagu jiray ba ay soo bartay maadadani, kadib macallinkii mar labaad soo hor fadhiistay casharkii ka qaatay oo u sharxay, mar labaad loo sharxay, kadib markii ay imaadeen guriga ay imaadeen kadib haddana ay akhriyeen 10 daqiiqo 20 daqiiqo 30 daqiiqo wixii ay awoodi karayeen ay akhriyeen. Waxaad u malaynaysaa marka ardaydaasi inay marka sameeyeen waxay sameeyeen marka waxa aad iyo aad u wanaagsan oo marka casharkaasi lagama yaabo inay si fudud ay ku ilaawaan. Marka sirta afraad oo ay sameeyaan ama aad samayn karto waxaa ka mid a marka uu isbuuca marka uu dhammaado ardaydani waxay sameeyaan marka mar walba guuleysta waxay sameeyaan isbuuca marka uu dhammaado maalinka khamiista iyo jimcaha waxay sameeyaan ardaydani waxay muraajaca ay ku sameeyaan jabtaradii ama casharadii ama koorsooyinka ay soo qaateen, ay revision ay ku sameynayaan, muraajaca ay ku sameynayaan, waxayna soo qaadanayaan buuq iyo warqad oo cadaan ay soo qaadanayaan, kadibna waxay qoranayaan soo khulaaseynayaan casharadii iyo maadooyinka ay soo qaateen, su-aalahoodii iyo qeybaha ugu muhiimsan pointiska ah ayay soo noodgaraynayaan ama ay soo diyaarinayaan. Marka kadibna marka waxay haystaan marka note ama revision ay ku sameeyeen ayay haystaan marka oo marka u sahlaya midaasi inay casharkii weli ay maskaxdooda ku sii jiro aysan ka bixin marnaba. Sababtoo ah mar waxay soo barteen iyagoo fasax ku jira, markii labaad waxay soo barteen macallin ay mar labaad u imaadeen oo casharkii ay ka soo qaateen si fiican ugu soo sharxay. Marka saddexaad isbuuc inta lagu guda jiray oo 5 maalin ah waxay sameynayeen ama akhrinayeen dhammaan maadooyinka ay soo qaataan ay maalin walba akhrinayeen. Isbuuca marka uu dhamaadana waxay sameeyeen haddana revision ay ku sii sameeyeen. Marka intaasi oo dhan oo dadaal ah ayay soo sameeyeen marka ardaydani. Marka sidaa darteed lagama yaabo casharkaasi inuu maskaxdooda kaga baxo si fudud. Qodobka shanaad waxa weeyaan isna marka ay bisha ay dhamaato
ardaydani waxay sameynayaan sidoo kale bisha markay dhammaato waxay sameynayaan ardaydani inay dhammaan casharadii ay soo muraajacaynayeen oo ay soo noodgaraynayeen isbuuc walba ay jabtar walba ay soo noodgaraynayeen waxay sameynayaan mar dambe ama mar kale inay haddana dib usii muraajaceeyaan oo isku keenaan marka maado walba intii ay jabtar isbuucaasi lasoo qaatay casharadiisa inay hal qodob haddana iskugu keenaan buuq iyo warqad haddana ay soo qaataan kadib haddana mar labaad ay soo guuriyaan isbuucani intaasi isbuuc ama saddexdii isbuuc ama labadii isbuuc intii ay soo qaateenba inay marka soo guuriyaan mar labaad ayay haddana sameynayaan marka ay bishu ay dhammaato labada beri ee ugu dambeeya bisha marka la gaaro marka ayay sameynayaan qodobkaasina sidoo kale marka waxaad arkaysaa laga soo bilaabo maalinka iskuulka la furay ama bisha kowdeeda ilaa iyo bisha ay ka dhammaato ardaydan waxay sameynayaan waxay ku jiraan inay mar uun macalinkii cashar ka soo qaataan guriga marka imaado inay casharkii akhriyaan isbuuc marka uu dhammaado inay casharkii akhriyaan sidoo kale bisha markay dhammaato inay casharkii si akhriyaan muraajaco ay ku sameeyaan intaasi oo dhan ayay soo mareen oo jaranjarooyina marka qof intaasi sameeya oo dadaal intaasi la eg sameeyey marka marnaba lagama yaabo in uu marka casharkaasi si fudud kaga lumo ama uu ku ilaawo lagama yaabo sirta lixaad waxay tahay marka toddobaad ka hor maalinka imtixaanka inta aan la gaarin imtixaanka toddobaad ka hor waa maalinka ama halka ay ardayda ugu welwelka badan yihiin weeyaan toddobaadkaasi marka ay ka soo harto ama la gaaro imtixaanka hal isbuuc ay ka harsan tahay oo keliya waa maalmaha ugu welwelka badan yihiin weeyaan ardaydu sababtoo ah ardaygani ma haysto wax asiga isku haleyn karo oo asiga uu diyaarsaday ma hayo sababtoo ah marka waxay noqonaysaa maalinkaasi waa maalinka ama isbuucaasi isbuuca ugu welwelka badan yihiin ardayda ayay noqonaysaa balse ardaygii intaani oo qodob aanu soo sheegnay soo sameynayay intaas oo dhan dadaal soo muujinayay waa xilliga marka uu asiga fursadaasi uu ka faa'iideysan lahay weeyaan marka ama ay u noqon lahayd fasaxii asiga uu ku geli lahaa kaalinta koowaad ee imtixaanka soo socda xilligaasi wuxuu dareemayaa marka farxad iyo waxaa kaloo dareemayaa qofkaasi kalsooni iyo deganaasho ayuu dareemayaa sababtoo ah wixiisa mar hore ayuu soo diyaarsaday marka qodobka ugu dambeeyo wuxuu weeyaan marka qodobka toddobaad ama sirta toddobaad ugu dambeysa waxay weeyaan qofka inuu alle tala saarto weeyaan qofka waa inuu alle subxaana wa tacaala uu tala saarto sida alle subxaana wa tacaala qur-aankiisa kariimka inooga sheegaya qaala tacaala faidaa cazamta fatawakal cala allah ina allaha yuxibu lmutawakiliin haddaad go-aansato adigu waxa aad go-aansato waad inaad alle subxaana wa tacaala aad tala saarataa marka alle subxaana wa tacaala wuxuu jecel yahay dadka asiga tala saarta adigoo la imaanaya marka asbaabtii aad ku geli lahayd ama ku suurgelin lahaa imtixaankaasi inaad ku guuleysato adigoo asbaabtii la imaanaya haddana waxaa lagaaga baahan yahay maadaama aanu nahay dad muslimiin ah waxaa lagaaga baahan yahay marka mar walba in aad alle tala saarato oo taladaadi aad alle u dhiibato marka ayaa lagaaga baahan yahay intaas marka aad samayso kadib ama qofkaasi intaas marka uu sameeyo kadib waxaa hubaal ah marka qofkaasi in uu wax badan weliba uu marka u suurgelayaan qofkaasi kaalintaasi koowaadna uu geli karo ama uu ka qayb qaadan karo insha allahu tacaala marka haddii aan su-aashii ahayd oo markii hore aan kusoo furfuranayni aan jawaabteeda aan isku dayno waxay tahay marka ama idinla wadaago maxaa keenay in mar walba hal arday ama laba arday ay galaan kaalinta koowaad mar walba ay galaan maxaa keenay ayay ahayd su-aashu marka waxaan rajaynayaa intaan marka aan isla fahnay kadib hadda qof walba su-aashaasi in uu garan karo ayaa rajaynaya marka balse waxaan rajaynayaa inaan idinla wadaago si qof walba u ogaado sirtaasi halkaasi ku jirta sirtu wax kale maahan waxay tahay in qofkaasi ardayga ahi uu sameeyey dhammaan qodobadii aanu soo sheegnay
ugu horeyso qofkaasi in uu 2 jeer casharadiisa soo bartay mar barayfad ama meelo kale ka soo siyaadsaday marna casharkii maalinka uu ka qaatay kadib casharadii muraajac uu ka sameeyay ilaa bisha ay ka dhamaato intaasi oo dhan soo sameynayay halka ardaygani kale uu yahay marka qof casharadii sanadkii oo dhan la soo qaadanayay oo la soo akhrinayay la soo sharxayay hal maalin uusan akhrinin uusan fiirinin maalinta la gaaro imtixaanka uu keliya marka qofkaasi boodboodo oo iswareeriyo oo 10 buug marba dhinacan u raaco ay noqonaysaa marka arrintaasi tusaale fudud haddii aan idin ku sheego waxa weeyaan ka soo qaad raashinkii aad bishan oo dhan aad cuni lahayd ayaa lagu keenay oo meel ayaa lagu keenay kadib waxaa la yiri raashinkani bisha marka ay dhamaato maalinta 29 ay tahay ayaad cunaysaa dhammaan wixii aad cuni lahayd bishan oo dhan maalinkaas oo kaliya ayaad cunaysaa raashinkan inta ayuu yaalay ilaa laga gaaro bisha 29keed maalinkaas ayaad cunaysaa marka dhammaan wixii looga talagalay bishan in la cuno marka suurtagal ma tahay inaad cunto marka wixii bishan oo dhan looga talagalay raashina inaad hal maalin aad ku cunto ma suurtagalaysa midaasi jawaabtu waxay tahay waa maya sidoo kale waa ardaygaasi asna sidaas ayuu la mid yahay oo ah haddii aad cashar aad sanad oo dhan la soo qaadanayay haddii aad isku dayso marka inaad qeybayso ama aad fahanto ama aad diyaariso 2 maalin ama isbuuc gudahood lagama yaabo inay marka aad soo koobto oo ay kuu suurtagasho midaasi waa sirta ugu weyn oo ay sameeyaan marka ardayda mar walba ee kaalintaasi koowaad gala waa sirtaasi waxaan rajaynayaa marka inaan isla fahnay sirtaasi oo aad noqon doonto insha Allah taala ardayga kaalinta koowaad gala imtixaanka soo socda insha Allah taala dhamaantiin waxaan idin rajaynayaa guul wassalaamu calaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh